gabartaas maadan fiirinin mustaqbalka dambe iyo farxadeeda dambe maadan fiirin just waxaa fiirsay markaas xaaladda meesha taalo oo ninkan oo ah lacag uu leeyahay hadda ani kaali igu qasab lacag ma laho عدنا سؤال شو ورثة كودينا وحواي إن دمرك لو قصبر رجع هنتيرياش إيسن ربين أما إيسن جعلان نباتا أيوه هرسيدي كرام فائدة يلا ذهين والله أنا هان دواتين واي نلاش مسك فاهم أيان حالات بدنا أسكجرو فهمت قفل بعافية عن دوخيس إنه كعيار قف إسفهم أيان إذا بعد كين أيان إسل نولا كران لكن إسكجل إسك صباح دين قلت باش وحلا بينه فهمت مرك أنا هان مقتل لين جور قف تاجر هذا قف أخير هذا يمد مع قف إن قف لو قصبه والله قف كان نول بدك أسوء أكون إن إسك دبي عديهين لقيا قف كاس إنه قف كل جاليه نول كل وليه إنه خسبتي وحفا إيده إنه مك ما نسو هذين عنو جاي قالوا كل دنكي سوارد في عمك إنه قنيت داك خسبتي فهمت مرك أنا هان إنه حس أول سمي وأكسور جدا أصلا بقول كقصب كأكسور جدا أصلا بأكسور جدا أوكي عبد الله والله هرتا أنا هرت ماشي أكسور جدا هرت سومالي أنا في ملء قار واحد جرا هرتا أو جبر أما سيد ويل قصب لو قدرايو أما ويل كجبر وحلو كان في ملء قصب لو قدرا والله جنو جورسو والله هرتا أنا سيد عندنا عمل واقع معنا وأكسور جدا توتالي بكوس قف إنه قصب لو قدرا سيد جبدا بلاش زي صار أو حال هابو نينك أنا هيول تاجر واي مراكنا كيما مش سو كيما جورسو soo marka aniga qofkii miimad horta lacag ma ahan waa farxad iyo gabarta waxay iyada ku qanacsan tahay inay keensato laakiin hadii la dhahayo ninkan lacag uu leeyahay taajir waaye bala waaye Mareykanka kiima lacagtaas oo istaa ee qasabka gurso gabartaas maadan fiirinin mustaqbalka dambe iyo farxadeeda dambe maadan fiirin just waxaa fiirsay markaas xaaladda meesha taalo oo ninkan oo ah lacag uu leeyahay lacag waa iimaanay laakiin farxadda gabartaada ma iimaanayso soo marka aniga kuma raacsani guurka qasabka qofka lagu qasbayo absolutely لجنة hadda ani kaali igu qasab lacag ma laho بسم الله أمنك بدل سوي maalinta lacag la sheegay هذا العقد ما ارتاح مرك مسنولول lacagta nolosha dhawaaba lacag maxaa ما يا خلد ولا وعز okay kaftan marka laga soo tago waayo aan runta ka hadlay ha ka jariyaa okay ولا mana jaraay nin lacag horta ma wala jira wala maxaa nolosha lacag nolosha u baahan tahay okay ما شاء الله okay kaftan marka laga soo tago dee ayaana guurka noocaas wuxuu yahay ganacsi guur markaa ma noqonayo gabadhiin sidii alaabtii la iibsado ninkaan asaguna xataa maybe mararka qaar warba laga hayn backgroundkiisa intuu doono reero kale leeyahay ciyaalo kale cidlo uga soo dhaqaajiyay marka kolba dee waalidka Soomaaliyeed haday dhacdo in taas sameeyaan duruuf unba ku khasbiso unba ku riixaysa laakiin dabcan waa ka soo horjeeda waa qalad gabadha in sidii alaabtii oo kale dee ay la iibsado ay lacag lagu bedesho halkaas ayada iyo familka iyo cid ay maartay wanaag ay faa'iido ka soo galaysa ma jirto inta ku soo koobiya أنا أكسر كذا بقول because أنا حامسنا جورك شعيلك وكورسدي والدك كنا يهو كورسدين so مرة الباكس هرشيدا جواد إن لو جوري العق أهان لو نقصبه يعني مرة عسلتاس أنا دي لا رأيي كان حدي لا بطاطا بهلا تشوتش never ever أضاء فوزي دبلا iyadoo marwa فوزي أمين magacaasa caawi waalo okay أنا فكركي ممكن يتامسه وأقص على سؤال شيء مع قسم واي okay أنت بوتيني زاد okay okay horta ani ahaan mar walba waxa qasabka waa ka soo horjeedaa soo gabdhaha Soomaaliyeed in rag aysan rabin aysan ku faraxsaneen aysan ku qanacsaneen in lagu daro horta wax wanaagsan maahan qof walba waalid ee Soomaali ah waxa leeyahay adi ahaan naftaada ka soo qaad sometimes waxa laga yaabaa inay adi kula fiican tahay laakiin mar walba waxa fiican ubadkaaga farxadiisa inaad ka taliso ama farxadiisa aad ka shaqeyso iyada aad weydiiso oo dhahdo hay ninkaan rabaa inaan kugu daro sidee u aragtaa soo inta badanna waxa oo yacni kala taga sababo ama furiinka sababa waxa kamid ah in raga aan yacni maxaa la gabdhaha lagu daro rag aysan u qalmin oo kaleento qof backgroundkiisa la aqoonin soo badanaa waxa laga yaabaa in loo lacag ma haystaa ninkan lacag u haystaa gabadhan wuu dhaqan karaa kii lacagta dibadda ku yimid kii inuu xanuunsan yahay laga yaabaa maskixiyan ma aaminsan dadka dibadda ka yimaada calaamad su'aal weyn aa saaran calaamad su'aal aa saaran soo horta
si markii loo fiiriyana waalidka qalad ma la saari karo oo sometimes waxaa laga yaabaa waalidiinta qaar inay faa'iido xataa ayagoo ugu jirin ee isdhahayaan gabadhaada bal ugu danee nin faqiir intuu guursan lahaa ee nolol xun gali lahayd si iyaga aaminsan yihiin waaye in yacni gabadhooda nin lacag haystoo kale ama shaqaystoo kale inay siiyaan laakiin mar walba waxaa la leeyahay mar walba gabdhaha farxadooda laga taliyo soo gabdhaha ra'yigoodana hala weydiiyo xaqay u leedahay xaqay u leedahay guurka gabadha xataa waxaa la sheegaa in haddii waalidkaa ku dhaho fardu ama farhabaar aad dhihi kartid yani aad diidi kartid waxyaabaha aad ku diidi kartid waalidkaa inuu kamid yahay waayo nolosha adaa dhisanoosid adigaa family maxaa la dhahaa adigaa qofkan guursanoosid waalidkaaga ma guursanayo soo maha soo marka mar walba waxaan leeyahay ra'yigeena hana la weydiiyo inkastoo 2024 aan islahayn waxaa jiri karo dad lagu qasbaayo gabar guur lagu qasbaayo su-aasha kale miya maya wuu jiraa waa laga yaabaa because dhaqan waayo waxaan okay su-aasheena xigta waxaa waaye foosiya kasoo bilaabeynaa foosiyo furiinka badan yaa sabab u ah ninka mise naagta mise waalidiinta horta furiinka horta waalid lama dhihi karo because waalidka waxay ku yeelan karaan percentage yar oo ah 1% ama 2 haddii loo fiiriyo laakiin furiinka badanaa dhanka wuxuu ka imaadaa ama gabadha ama wiilka oo waxay ku xirantahay labada qof oo lamaanaha wada nool see noloshooda u maareeyaan lama dhihi karo percentage badan ragga hala siiyo percentage badan dumarka hala siiyo oo lama garan karo yacni meeshu badanaa ka iman karo furiinka badanaa waxaa laga yaabaa mar inuu sababo dhanka ragga uu ka imaado oo cadaadis dhankaas oo ku dhibtooto oo dhan naag kale dhan qiyaamo waxaasa ay aragto uu sababo inay furiin dalbato sidoo kale markuu qofkii ragga ahaana arko dhanka dumarka maxaaskiisa uu meesha uu guriga uu joogo uu nafis ku dareemi waayo ama buuqi uu ku bato waxyaabahaas oo kale labada qof qanaaco oo ay dhexdooda imaan weydo furiinkan uu iman karaa soo anigu waxaa dhihi karaa wax percentage haddii la xisaabiyo la dhihi karo dhankaa ha loo badiyo iyadoo yacni dumarnimo la dhihin ragga ha lagu cadaadiyo ama anoo ahaan u hadla islaahay dumar waa ragga culays ka saar percentage ma jiro isdhihi karo dee ragga ama dumarka waa isfahanka labada qof lamaanaha aasaaska meesha ay kasoo bilaabeen guurkoodii hore haddii uu qaldanaa soo mar walba qof uu ka iman karaa marna dhanka dumar gabadhu aad dalban karta inay furiin dalbato oo maadaama ay ninkeeda dhib ku qabto marna ninkii ka iman karaa maadaama uu qoftiisa uu fahmi waayo noloshoodii iskeeni weydo laakiin waxaa jirto percentage ahaan yacni waxyaabaha furiinka sababo kale maadaama maxaa yani haddii su-aasha sida kale noqoto dho maxaa keeni kara inuu furiinka bato dhankeebuu ka badan karaa waa la dhihi karaa dhanka ragga ah because gabadhii dumarka aad waxay rabtaa inay keligii loo ahaado nolosha keli lagu noqdo halkii dhankii dumar ee ragga ahaa majority 98 as dhigi karno ee rabaan wax la dhaho 2 3 4 iska badsadaan so taasna waa la dhihi karaa marka meeshu aasaaska isha aasaaska ay ka imaanaysa furiinka ragga dhankooda waaye laakiin haddii la dhaho yaa u badan percentage ma laha is dhihi karaani okay ubad maalin waa diicdaan adaga horta inkastoo anaga ayarnahay oo weli aanan gaarin laakiin okay horta sanadka maanta waxa moodaa furiinkii wuxuu noqday moodo wax la isaga daysado dadkii oo dhan saas loo wada kala yaacayaa kowde anagoo fadhinaadana TikTok soo dhignaa okay su-aasha waxay ahayd dhankeebuu inta badan furiinku ka imaadaa ani waxaa leeyahay dhanka ragga inta badan ayada sababo badan oo la raacin karaa ay jirto marka muxuu ahaayey sababtaas anisaas u leeyahay waxa weeye marka ugu horeysa waxbaa furiinka sababaya soo ma aha oo waxaan sababta ugu horeysa waxaa aaminsanaya inay tahay